dadka halkan fadhiya dhammaantood waxa weeyaan dad sidaa waddanka lexjaalada ugu qabto ugu qaba waana dadka in dawladdaadu ay dhisanto iyo dawladihii ka horreeya Somaliland contribution ka geystay oo dee adiga kaaga warramayso dadka halkan fadhiya dhammaantood waxay u yimaadeen inay wixii wareeg wanaagsan ee aadno waddanka ka dhigeystaan wixii talooyin ay hayaan ay ku sheegaan sababtoo fursadda talo la isku gaaro aad iyo aad waa once in a lifetime dhowkii sano markaad mar timaado dee haddii maaragtay imika regime adag baa ku soo rogay inaan qof kaliya oo dadka halkan fadhiya ka mid ah aan maaragtay talo ku sheegin ama su'aal ku weydiinin waxa weeyaan dadkani waxay doonayaan sida madaxda kale marka halkan ugu yimaadaan ee Soomaalida iyo adduunyada kale TV-yadaas ay soo fadhiistaan oo dadka qof kasta intuu telefoonadooda su'aal ku doono weydiiyo halkana 20 qof ayaa su'aalaha maanta soo jeedinaya ama talada soo jeedinaya ragga kula fadhiya ka shakisan yihiin inay maaragtay iyaga dhibaato ku noqoto marka arrintaasna waxa weeyaan arrin nasiib darro adiga hogaamintaada madaxweyne Siiraayo wuxuu tari lahayd oo aad iyo aad faariya kulo aba halkaa ku lumaysa oo lagu soo gaarsiin laba qodob baan madaxweyne ku sheegayaa midna waan ku fogaadinaynaa 20kii sano ee Soomaaliland ay joogtay iyadoon hal askari darajo la siin waadigan aad u sheegay dad badan baa inagu dhaliilay lahaa warblaa kuwan waxay sugayaan dawladda Soomaaliya oo rabto askartooda darajo u siisa ayaa la inagu dacayday arrintaas maanta meesha way ka baxday waa ku istaan waa bilowday waxyaalo yaryar oo aad u liito oo mareer hebel baa jannada badsanaya mareer hebel baa yaraysan doono iyo la mid oo dhaamin ba intaasoo dhan u fadhiyo geesinimo ay u baahnayd iyo go'aan waad bilowday in lagu sii socday u baahan tahay oo tallaabada hore loo sii qaaday taasi waa qodob arrinta labaad waxa weeye madaxweyne Axmed Maxamed Siiraayo wadamadan qurbaha ee wax ku baratay ee aad taqaana sida u dhismeen waxyaalaha ay ku dhismeen waxa ka mid ah oo inaga maqan oo dalkeena la doonayo inaad barto oo culture in la isu sheego dhaliisha iyadoo la qarinin haddii la sheego wixii qabsoon waayana la qarsado oo maaragtay dawladdu ay dhiirin weydo dadkuna dhiirin uu ku sheego uu waayo waxa weeyaan waynu duwaynaa marka waxa weeyaan Mr. Axmed Maxamed Siiraayo in culture ah inuu la isu sheego Afrikaan Mr. Axmed Maxamed Siiraayo waxaan ku sheegayaa maalintii dhaweeytay la soo saaray in laga baxo Soomaaliland oo amniyaanu ka jirin dawladda galbeedku ay soo saareen taladii wasiiradaadu ay ku dhawaaqeen ee iska horjeeday tala saxan may ahayn waxa ka mid ah warqadaas oo qoray wasiirka ku fadhiya arrimaha dawladda taawi isaga qoray weedhan ku kamid wuxuu yiri we have failed to establish any evidence to support the British allegation bill we have failed waan ku fashilanay inaan helno halkaas ku qoran wasiirka waan ku fashilanay waxa weeyaan wixii uu jiraa anagu ma fashilanay anagu ma qorin wala wata hadaba ku soo dhawaata taladaan ku jeedinay waxa weeyaan wasaaradaha kala dhaliisha ka jirta waddan la aqoonsan bayno aan dhaqaale aysan capacity building kooda aan fiicnayn lagu canaan maayo wixii aan dad keenin wasaaradaha kala dhaliisha ka jirta inay dhib mayso wasaaradda arrimaha dibadda waxay noqotay hal wasiir oo bila administration oo aan tala ka jirin isaga afkiisa ka sheegay inaanay wasaaradda arrimaha dibadda ku arrinta ugu muhiimsan ee mas'uuliyadda maanta ay u qoraysaa waxay shirkan soo socda ee madaxweyne
هذا إنك محترم كانوا محمد هارون وراء مساس لي أخيرا ما يبغى وسوري مين رح سوري محمد عبد الله إن أكو كرسون هاي بقولك كرسون بدي كريسيس نرايا ولسه ناي برياد ناي ضد ناي وريانا كنا كريسيس لكن يعني لقى عمل كدر وحنا قبل وحنا قف قف كانوا مقدرة ما ورق سنة ما قرأ وحنا شيء الدولة دي رزقها شيء عام ويسكوا كلها كريسيس ما هو شيء وحنا وكل ده وحنا كورك سنة عد برايق بتشتو وحنا نقول ورقسين بتشتو وارفعنا وامشينا سيرنا بامشينا إذا كان شيكيني وإذا كان شيكيني دليلنا ولا دليلنا هي نرشنا ولا لكن إن قفت الشلون محمد سير لهم بحو هدي وبتكين دليل هي ولا أنا ولا قبل ولا وقالنا ونيجنا ونكفكرنا ونتوسنا لكونا تعال إذا كان إذا كان